wasiirka umuuraha gudaha Somaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed iyo maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Caydiid Solteko oo ay wehelinayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda hoose ayaa xariga ka jaray laba xarumood oo cusub oo ay yeelan doonaan ciidamada dibdamiska qaranka Somaliland kuwaas oo ku kala yaala degmooyinka Maxamuud Haybe iyo Ibraahim Koodbuur waxayna xarumahani ka mid yihiin mashruuca GPLG ee dawladaha hoose ugu horreeyna waxa munaasabada xariga jarida hadal ka jeediyay agaasimaha guud ee ciidamada dibdamiska Somaliland maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa xogayaha fulinta dawladda hoose iyo waliba gudiyo ka tirsan degmooyinka laga hirgeliyay xarumahani maanta isugu nimid xafladan xariga lagaga jarayo xarunta dibdamiska degmada Maxamuud Haybe ee caasimadda Hargeysa halka waxaan ku mahadnaqayaa anagu wadahaan dowlad waxaan nahay aniga maayirka ku waxaan ku mahadnaqayaa guddiga horumarinta degmada Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooye ismaan baane حيثما نعتبرنا رجل وكتاها تعبكي ماشا كنت كميش اسمعي وحلاي هاي تعبك ونبني سواكا وفي من هذا الوقت قلت لبعض من تعطون فرصه حلول بالمريسة اي اسكو دولته خاصية جيبيا تشيرو من المسلم واحد جبتنا وكلمة ربنا وكلام نوبل نوبل ولي من المسلم مدى وحضر كيبي أجمل المستقبلية أجمل المستقبلية كتبوا الوصاهان كل المشي ومشي كل تبع أقدر كل هذه الوصي هو سبحانه وتعالى سيدنا محمد أو سبحانه عليه وسلم اتبع الفضل وتأثر بالفضل أنت لا تكون هذا في العالم تبين تروح على كل من عن فرع الجانب وأنا كنت من محمد هذا intaasi kadib waxa isaguna madasha hadal ka jeediyay maayirka caasimadda Somaliland ee Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Caydiid Solteko gabagabadii munaasabadan waxaa hadalka soo afmeeray wasiirka umuuraha gudaha Somaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed aad baan ugu mahadnaqayaa uguna bogaadinayaa maamulka degmada maayarka iyo guddiga fulinta iyo guud ahaan maamulka golaha deegaanka qaybtooda ay ka qaateen balaarinta xarumaha dibdamiska baahi weyn baynu u qabnay oo waynu ognahay dib weyn baa nagala kulmayey marka qabqarxo siyaaraha maxaan ku dhahday ay sida sahlan u saarayeen maxaan ku dhahday dibdamisku ama mararka qaarkood may jirin bararna maxaan ku dhahdaa hadday jireen tiradoodu aad ومحمد عبد الله محمد أندر CNN TV مقالة Hargeysa.